Assalaamu calaykum. Waxaan bartay in ay qofka u khayr badan tahay in uu ahaado diidiin ku socda dariiqa toosan inta uu ahaan lahaa daaro ku socota dariiqa qaladka ah. Waxaan bartay in furaha khasaarada uu yahay in qofka uu isku dayo in uu raaligeliyo cid kasta ama qof walba. Waxaan bartay in qofka guusha gaara uu yahay kan sabarka iyo dulqaadka badan. Waxaan bartay in jaamacadda iyo iskuulka aan wax ka baranno kadibna aan imtixaanada galno, balse nolosha imtixaanka ayaan galnaa kadibna markaas aan wax barannaa. Waxaan bartay in hadal gaaban oo idin dhexmara qof xigmad badan ama dood yar oo u dhiganto bil duriseed oo kale.